kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo nagala socotaan waxaa jirta in ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyo saraakiil kalkaloo sarsare oo dalka ka tirsan si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga oo magaalada Jigjigana lagu qabtay shirka guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo kulankaasina uu ahaa mid uu guddiga fulintu uu si weyn ugu falanqeeyay waxyaalaha qabsoomay jooyinka xigay la qaadi doonaan uu ku jeexay waxaa kaloo jirta kulankaasi kadib in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu qabtay munaasabad lagu bilowsiinayo wax soo saarka qamadida ee xilliga jilaalka ee sanadka 2015 balse waxaa jirta sida loo ogsoon yahay in dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ay wado dadaalo ballaaran oo dhibaatooyinka lagaga baxayo horumarna lagu gaadhiyo waxaa ka mid ah dhismaha biyo xidheenka weyn ee dib u curashada Itoobiya ee 3 jeer sida guusha loo buuxiyay waqti xaadirkana la bilowsiiyay 2 tarbaan inay hawlahooda bilaabaan waxaa kaloo ku xiga in museumka sayniska ee dhowaan xadhiga uu ka jaray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu tusaale weyn u noqday qaaradda Afrika waxaa kaloo jirta in dowladdu ay ku dadaashay sidii looga bixi lahaa baahida dhinaca cuntada taasoo dadaal u gashay in qamadida xilliga guga iyo jilaalkaba la soo saaro sidoo kale in qamadida laga soo saaro meelaha kulaylaha hadda ka hor loo arki jiray in qamadidu ayna ka soo bixi karaynin waxaa ka mid ah deegaanka Soomaalida deegaanka Gaambeela iyo deegaanka Anfarta oo kale haddaba dadaalkaasoo sii socda waxaa jirta in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu beeritaanka ama dalaga qamadida ee xilliga jilaalka ee sanadka 2015 ee heer qaran uu si rasmi ah uga bilaabay deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Faafan degmada Tuliguuleed Soomaaliya ውስጥ በእንደዚህ አይነት መስክ በእንደዚህ አይነት ልምላሜ በሄክታር ከ40 ኩንታል በላይ የሚገኝበትን ማሳ ማየት የአምናውን ድርቅ የአምናውን ችግር ለረሳ ሰው ካልሆነ በስተቀር ተአምር ነው haddaba ra'iisul wasaare Abiy Ahmed munaasabada lagu bilaabayay beeritaanka qamadida xilliga jilaalka qodobada ama hadallada uu soo jeediyay waxaa ka mid ah in la diyaariyay 1.3 milyan oo hektaar oo masnada ama waraabka lagu horumarinayo oo markaa la filayo la qorshaystay in 52 milyan oo kintaal oo qamadi ah laga soo goosan doono hadallada uu ra'iisul wasaare soo jeediyay waxaa kaloo ka mid ah in xilliga jilaalka xiga uu muhiim u yahay in baahida Itoobiya dhinaca cuntada ama qamadida in la buuxiyo ama lagu filaado kadibna kuwa kale la taageero wuxuu ra'iisul wasaaruhu sheegay in qiimeynta xigta ee jilaalka la samayn doono ee xisbiga barwaaqo in 50 milyan oo kintaal wax soo saar ka yar una noqonaynin mid aan isku fahmi karaynin balse uu noqonayo mid dagaal keeni kara saas awgeed in dadaalka la badiyo wuxuu ra'iisul wasaaruhu sheegay haddii aanu si xooggan u dadaalo in la bedeli karo taariikhda Itoobiya iyo qamadida ka dhaxeeya oo weji kale loo yeeli karo wuxuu ra'iisul wasaaruhu sheegay goobtaasi laga soo jeediyay in talaabadan ay tahay mid bedelaysa taariikhda Itoobiya qamadida ka xiriidha oo baryootanka ama dawarsiga laga badbaadayo isla markaana bogga taageer qaatanimada saas lagu soo afjarayo oo waji cusub la bilaabi doono waxaa goobtaasi khudbad ka soo jeediyay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar waxa uu sheegay madaxweynuhu in deegaanka Soomaalida hadda ka hor uu caan ku ahaa oo lagu yaqaanay isku dhacyada iyo abaaraha balse in waqtigan uu gudbay in taariikhdaasi la bedelo oo dhinaca wax soo saarka loo janjeero ama loo bato taasina ay keentay in waqti xaadirkan deegaanku dadaal ugu jiro sida qamadida Itoobiya ay suuqyada adduunka ugu dhoofin doonto deegaanka Soomaalida oo qayb dhan 2 milyan oo kintaal oo qamadi ah uu yeesho ዘንድሮ ዓመት በሶማሌ ክልል 847000 ሄክታር ነው የለማው ይሄም ኦልሞስት ወደ 10% ሊለማ ከሚችለው የክልላችን መሬት ይሆናል
sanadkan deegaanka soomaalida dhulbeereedka la horumariyey waxa uu dhan yahay 847,000 oo hektaar marka cadadkan ama baaxaddan dhulka la eego dhulka la horumarin karo ee deegaanka soomaalida waxa uu dhan yahay tiro u dhow 10%. hadda ka hor tiradaasi waxay ahayd in ka yar 5%. sanadkan waxaa la gaadhsiiyey wiil madaxweynuhu 9% ilaa 10%. wuxuuna sheegay in sanadka soo socda iyadoo la adeegsanayo garshiyo dheeraad ah dadaal dheeraadana la samayn doono in wax soo saarka kor loo qaadi doono howlahaasna ay socdaan. wasiirka beeraha ee dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Federaalka Itoobiya mudane Cumar Xuseen oo isaguna goobtaasi ka hadlay waxa uu sheegay in horumar laga muujiyey wax soo saarka qamadida gaar ahaan qamadida la soo saaro xilliga jilaalka. wuxuuna sheegay in mugga ama baaxadda dhulbeereedka la kordhiyey wax soo saarkuna saasoo kale uu kordhay baahinta meelka meel loo qaadayo wax soo saarka soo baxayna uu si wanaagsan u socdo. ባለፉት 4 ዓመታት ያለን አቺቭመንት ምን ይመስላል የሚለውን ባለው የመሬት መጠን በምርታማነት በምርት መጠንና እንዲሁም ደግሞ ስርጭቱን ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ የሄደበትን ስናይ afartii sane ee lasoo dhaafay guulahannu gaadhnay haddaannu eegno waxaa kordhay baaxadda ama cadadka dhulka wax soo saarka qamadida loo adeegsanayo iyo kartida wax soo saarka qamadida mugga wax soo saarka iyo qaabka loo baahinayo ee wax soo saarkaasi loo qaadayo meel ka meel. waxaa arrintaasi falanqayn lagu sameeyey oo la ogaaday in xaaladdaasi ay jirto. sannad walba waxaa soo kordhaya baaxadda dhulka loo adeegsanayo wax soo saarka qamadida. waxaa la ogsoon yahay buu yidhi in 6 jeer la kordhiyey oo sannad walba 6 jeer uu kordho mugga ama baaxadda dhulka qamadida lagu beerayo oo la gaaray heer halka hektaar laga soo saaro 40 kintaal oo qamadi ah. haddaba taasi waxay keentay buu yidhi in sanadkii la soo dhaafay 25 milyan oo kintaal la soo goosto. ra-iisul wasaaraha oo bilaabay munaasabadda beeritaanka qamadida xilliga jilaalka ee sanadka 2015 ayaa barnaamijkaasi ka bilaabay deegaanka soomaalida gobolka faafan degmada Tulliguuleed. wuxuuna sheegay ra-iisul wasaaruhu in wax soo saarka qamadida ee xilliga karanta iyo xilliga jilaalkaba natiijooyinka ka soo baxaya ay noqdeen kuwa la yaab leh. አምና ከ60 ሚሊዮን እምብዛም ያላለፈ ምርት ነበር ያመረት ነው። ትናንት እንደገመገምነው እንዳያችሁት የዘንድሮ ክረምት ከ100 ሚሊዮን በላይ ኩንታል ሃርቨስት ማድረግ የሚያስችል ምርት ማዘጋጀት ተችሏል። kal hore wax soo saarkaannu helay mid aan 60 milyan oo kintaal sidaas uga sii badnayn ayuu ahaa. sanadkan laakiin waxaa muuqata iyo diyaargarowga la sameeyey waxaa soo go'i doona in ka badan 100 milyan oo kintaal oo qamadi ah. arrintanna waxay farxad weyn u tahay buu yidhi ra-iisul wasaaruhu keliya maaha Itoobiya dhammaan waddamada yoolasha la midka ale. shalay 60 milyan oo kintaal bay ahayd maanta 40 milyan oo kintaal baa lagu soo kordhiyey. saas awgeed sanadkan waxaa la gaadhsiiyey in ka badan 100 milyan oo kintaal. taasi war weyn ayay noo noqonaysaa. laakiin ma aha buu yidhi in wixii la bilaabay la dhammaystiro oo saas keliya lagu daayo balse inaan mashaasi lagu joojin oo horey loo sii socdo ayaa loo baahan yahay. haddaannu sanadkan 100 gaadhsiinay sanadka soo socda waa inaannu 200 gaadhsiino. waa inay noqoto mid aanan joogsanaynin oo sanad walba sii kordha oo sanad walba sii fida. faca maanta jooga buu yidhi ra-iisul wasaaruhu waxaa looga baahan yahay inuu noqdo mid bedela xilligan Itoobiya ay gargaarka qaadanayso oo ay noqoto mid iyadu isku filaata oo kuwa kalena wax gaadhsiisa. taasina awood baan u leenahay buu yidhi ra-iisul wasaaruhu. maanta dhulbeereedkan quruxda badan ee cagaaran ee qamadida lagu beeray deegaanka Soomaalidu waa mid tusaale arrintaasi u noqon karta buu yidhi oo kartideen haddaannu isticmaalno si buuxda u howlgallo in malaayiin kintaal aan u dhoofin karro sayladaha adduunka. deegaanka Soomaalida oo noocan u cagaaran oo halka hektaar 40 kintaal in ka badan laga soo saari karo cid kastoo aan iloobin abaartii deegaanka Soomaalida ka dhacday waa mid mucjisa oo la yaab ku noqonaysa. waxaa loo baahan yahay in Itoobiya iyadu isku filaanayso oo qamadida malaayiin kintaal ay dibadaha sayladaha adduunka u dhoofin doonto. tani waxay noqonaysaa buu yidhi bilowga laabitaanka taariikhdii foosha xumayd ee Itoobiya iyo qamadida ka dhaxaysay. sannadaha soo socda in badan ayaannu kordhin doonaa ayuu yidhi ra-iisul wasaaruhu fariintiisaasi. beertay horta anigu waa 40 kintaal. waxaan beertay 40 hektar ilaa dhowr 300 kintaal waan ka sugayaa. ay beerley dhulkana waa dhul wax soo saar leh. dhulkan isagoo madhaabara lagu darin ayaaba hektar ku dhalayaa 30 kintaal.
kabacdi haddii madhaabare lagu daro oo si fiican looga shaqeeyo 3 jeer la qodana wuxuu dhalayaa 40 kintaal dhulkani waa dhulka biyahan waxay jiraan 200 mitir haddii la soo saaro la waraabiyo Itoobiya dhan wadanka anfacaya dhulka la beeray maanta waa 85 hektar 800 hektar laakiin qamadi waxa la beeray 60 kun oo qamadi la beeray oo hektar degmada Tuligool la soo qaado haddii la wada beerana 250 kun oo hektar bay degmadu wax soo yeeleedahay dhul beerley wax laga beeri karo marka annagu dhulkani waa dhul wax soo saar ku fiican weligayna aabahay awoogay beerley baan anigu beerley baan ahay annagu beeraha ma ka manacsanaa reer dibad guurmeeyin waxaan u baahanahay shinida xulka Itoobiyada kala la siiyo madhaabaraha in la soo gaarsiiyo waagi hore waxa la qodi jiray hadhuudh iyo arbixi way raagi jirtay 6 bilood 3 bilood ku bislaanaysay laakiin imika maadaama cimiladu isbedeshay roob kula yaraaday qamadi fiicanna xagga wasiirada beeruna soo gaarsiyo siirkan ma arkayno waagi hore waxaan qodi jiray ku dhaadheero aan san u fiicnayn laakiin intay wasaaradda beeruhu waxay dib ugu sheegay shinida xulka la noo keenay dadku uu iska daayay hawlkii wuxuuna u bedelay qamadigu 3 bilood buu ku bislaadaa maadaama cimiladu isbedel roobku yar yahay sanadka roob fiican la helana in badan baa soo baxaysa sanadka roobku yar yahayna wax yar baa soo baxaya kolka annagu cagafta qodaysa waa nagu yartay ma haysano cagafta goynaysa ma haysano kolka cagafta shidaal baad waayaysa sanadka maanta wax loo qodi waayo shidaalaan loo qodi waayo waa maadaama ra'iisul wasaare dalku yimiday waxaan ka codsanaynaa si Itoobiya oo dhan degmada Tuli anfacaysa haddii wax siyaasaarkeega labada boqol iyo konton ka kuna hektar ee degmada Tuli haddii la beero oo qamadi xula la beero si fiican looga shaqeeyo madhaabariyo cagafyaha qoday wax walba la siiyo degmada Tuli guuleed Itoobiya anfacaysa wax badan bay soo saaraysaa waana dhul ku habboon wax soo saarka haddii la waraabiyo iyada waaba laga yaabi lahaa waraab leedahay laakiin cirib badan hadday hesho waxay boqolkiiba boqol Itoobiya anfacaysaa waxaan u dhoofin karnaa sida ay u dhoofiso Ukraine qamadiga soo loogu doontiyo iyo Ruushka ayaa loo soo doonan doonaa degmada Tuli guuleed dalka Itoobiya waxaan doonaynaa inuu sida Ukraine qamadiga loo caalamku Itoobiya qamadiga ka qaato oo inagu dibadaha u iibgeeyno oo dalka Itoobiya horumar u gaadho maadaama ra'iisul wasaare dalku noo yimiday anoo ku hadlaya magaca shacabka Tuli guuleed ku nool iyo salaadiintii odayaashiisa shacabka annagoo salaan kaliya laaba u dirayna ra'iisul wasaaraha iyo guddiga fulinta barwaaqo boqolkiiba boqol annagoo salaamin oo naga gaarsiin salaan kashi laaba ka soo naga gaarsiin anigu waxa magacayga la yiraahdo Faarax Axmed Cumar waxaan ka mid ahay duqeyda degmada Tuli guuleed waxaan maanta farxad noo ah annagoo balay ministerkii ugu sareeyay Itoobiya maanta iyo madaxdii la socotay intaba waan salaamayaa maanta halkan waxa la yiraahdaa degmada Tuli guuleed qabalahan waxa la yiraahdaa qabalaha kulmiya la yiraahdaa Itoobiya oo dhan baa maanta iskugu timiday waxaan leenahay meel khayraadku aad iyo aad ugu fiicanta weeyaan wax soo saarkana boqolkiiba boqol dhulka yacni maaragtay khayraadka barwaaqada dhulka soo saara weeyaan waxay ka mid tahay waqtigii hore ma garanaysa ilaa Xayli Silaasiya ilaa intii ka dambaysa waqtiga Xayli Silaasiya oo kale wadanada dibadda ayaa looga dhoofin jiray China iyo Hindiya halka hektar wuxuu dhalaa 40 kintaal markuu dhulku roobku hagaag noogu doo 40 kintaal buu dhalaa walka dhulka baaciis iyo beledkiisa leega 200,020 hektar weeyaan waxa inta hadii la qodi lahaa wadanada dibadda ayaa loo dhoofin lahaa wax Itoobiya oo dhanba anfaca ayaa degmada Tuli guuleed kalaata ka soo bixi lahaa waxaan doonaynaa maanta haduu balay ministerkii ra'iisul wasaaraha yagi haduu noo yimiday inuu naga caawiyo xagga ceelasha riigaga inuu nasiyo waan doonaynaa inuu cagafyada wax qodayana naga caawiyo inuu ceelasha wax kale oo doonaynaa inuu cagafyada goynaya qamadiga naga caawiyo oo qamadiga xulka ah ee imika naloo keenay si fiican bay wasaaradda beeruhu imika hadii laga helay noo gacan qabatay qamadi wanaagsan oo xul ah baa naloo keenay intaa waxa weeyaan meeshii waaga hore dhalaysay 10 kintaal meeshii dhalaysay ma garanaysa dhalaysay maanta 20 kintaal bay dhalaysaa 20 kintaal bay maanta dhalaysaa waayo waxaas waa maxay waa xulka siirka wanaagsan ayay arintaasna taana keenay waxaan leenahay boqolkiiba boqolba ku maasan yahay dawladii ugu sarreysay maanta haday noo timiday inay maaragtay hay iskuulna loo dhiso waan u baahanahay ina magara boordiga waxa weeyaan caruurta wax lagu baro
waanu baahannahay waxa weeyaan waxaan gudbinaynaa oon codsi u gudbinaynaa baramisterka waxaan u gudbinaynaa degmada Tuli Guuleed inaa baahiyaheega u baahan tahay inaana laga soo caawiyo wixii magaranaysa xagga shidaalka xagga cagafyada dhibaatooyinka aan qabno ee guud inaana laga caawiyo baan codsiga yaga ayaan gaarsiinaynaa ra'iisul wasaarahana maanta boqolkiiba boqol baan soo dhaweynay iyo madaxda la socotaba intaba waan soo dhaweynay waxaan leeyahay oon ku soo gaabinaa hadalkayga oon ku soo gabagabeynayaa waxa weeyaan waa dhul wax soo saar oo wanaagsan oo wax kastaba bixiya wuxuu bixiyaa qamadiga haruurka arabkhida galeyda heeda hadii badhadhaha basasha wax unan bixinin dhulkani ma jiro hadii dhulka tacab la geliyo oo ma garanaysa dawladuna gacan qabato adduunka oo dhan waa lagaga kaaftoomi wax dibadeed waan ka kaaftoomayna wax dibad nooga yimaada waan kaga kaaftoomayna waxaan leenahay codsiga yaga inaan naloo gaarsiiyo waxyaalka aan u baahannahay inaa codsigeega naloo gaarsiiyo barayn ministerka ugu sareeye nasiib wanaagna maanta waxaan degmada Tuli Guuleed waxa yeelatay inuu barayn ministerka ugu sareeyay inuu noo yimiday waan ku boqolkiiba boqol baan ugu mahadnaqaynaa